Somaliland waxay muddo 34 sanaha isku maamuleysay si madax bannaan iyadoo leh dhammaan astaamaha dawladnimada, dhul iyo xuduud la difaaco, ciidan qaran, hay'ado sharci dejin iyo garsoor, canshuur ururin, adeegyo bulshada iyo doorashooyin tartan ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa ka maqan aqoonsi rasmi ah oo caalami ah, taasoo si weyn u xadidaysa horumarkeeda dhaqaale iyo qayb qaadashadeeda nidaamka caalamiga ah. Warbixintan waxay falanqayn faahfaahsan ku sameynaysaa asalka taariikheed ee go'aan-isutaagga Somaliland, horumarka siyaasadeed iyo bulshada ee ay gaadhay, isbarbardhigga Soomaaliya iyo Somaliland, muhiimadda istiraatiijiga ah ee Somaliland ee gobolka iyo caalamka, fursadaha iyo khataraha Maraykanku wajihi karo, talooyin siyaasadeed oo ku wajahan Washington. Asalka taariikheed kacdoonkii Siyaad Barre iyo burburkii Soomaaliya. Markii Siyaad Barre afgembiyey dowladdii Soomaaliyeed 1969, dalka waxa uu galay marxalad keligii talisnimo iyo cadaadis. Dastuurkii waa la jebiyey, baarlamaanka waa la kala diray, xisbiyadii siyaasadeed waa la mamnuucay, waxaa la dhisay golaha sare ee kacaanka oo toos uga amar qaata midowgii Soofiyeed. Qabiilo badan ayaa ku dhacay ciqaab wadareed iyo xasuuq ballaadhan. Majeerteen 2,000 oo qof ayaa la xasuuqay. Cumar Maxamuud ceelashoodii ayaa la sumeeyey, baliyahoodii waa la qalajiyey, xoolihiina waa la dabargooyey. Isaaq magaalooyin dhan ayaa duqeymo lagu burburiyey, Hargeysa iyo Burco. Kumanaan dad ahna waa la xasuuqay. Qiyaas lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan 60,000 ilaa 200,000 oo qof la dilay intii u dhaxaysay 1998 ilaa 1990. Dhanka doorashada nabadda ee Somaliland, markii uu Siyaad Barre dhacay 1991, Somaliland waxay lahayd sabab kasta oo ay dagaal iyo argoosi ugu kacdo, hase yeeshee waxay dooratay waddo ka duwan midaasi. Odayaasha dhaqanka iyo bulshada ayaa qabtay shirar nabadeed, heshiis bulsho iyo dastuur cusub ayaa la diyaariyey. Waxaa la aasaasay nidaam dawladnimo oo ku dhisan wadatashi iyo dimuqraadiyad. Tani waxay ka dhigaysaa Somaliland tusaale dhif ah oo Afrika ku yaal, dal ka baxay burbur iyo xasuuq, balse doortay dhisidda dimuqraadiyad iyo xasilooni. Horumarka Somaliland, dastuur rasmi ah ayaa lagu qaatay 2001 codbixin qaran. Waxaa jira hay'ado sharci dejin, fulineed iyo garsoor oo shaqeeya. Doorashooyin dimuqraadi ah, doorashooyin madaxweyne iyo baarlamaan ayaa si joogto ah loo qabtay. Waxaa dhacay isbeddel nabadeed oo hogaamineed, taas oo ku dhif ah gobolka. Amni iyo nabadgelyo, Somaliland waxay dhistay ciidan qaran iyo boolis. Marka la barbar dhigo Soomaaliya, xasiloonideedii waa mid la taaban karo. Adeegyo bulsho iyo dhaqaale, inkastoo ay ka go'an tahay nidaamka caalamka ah, iskuulo, isbitaallo iyo adeegyo kale ayaa shaqeeya. Miisaaniyadda dowladda waxaa badankeed lagu maalgeliyaa cashuurta gudaha. Haddii aan asgarab dhigno, ayay tiri ayaan xirsi hadalkeeda wadaa Somaliland iyo Soomaaliya. Somaliland waa daris maamulayay 34 sano, halka ay Soomaaliya ay ku tiirsanayd 34 sanaba deeq shisheeye. Sidoo kale waa dal doorashooyin dimuqraadi ah oo tartan xor oo xalaal ah uu ka dhacay 34 sano, halka Muqdisho ay ka dhacdo doorasho ku kooban oo muran iyo musuq u hareeyay. Dhanka ciidanka qaran iyo boolis ayay dhistay Somaliland oo ammaankeeda suga. Al-Shabaab ayaa dhanka Soomaaliya gacanta kaga haysta dhul ballaadhan. Miisaaniyadda Somaliland waxay ku dhisan tahay cashuurta gudaha shacabka. Xagga Soomaaliya ay ku tiirsan tahay gargaar caalami. Horumarka bulshada waxa uu gaadhayaa Somaliland 0.45 HDI, halka uu Soomaaliya uu ka yahay 0.361. Sumcadda caalamka, Somaliland dhankeeda waa dal sharciyad ka maqan yahay. Dhanka kale ee Soomaaliya waa dal fashil ah oo caan ku ah musuq iyo argagixiso. Muhiimadda istiraatiijiga ah, badda iyo ganacsiga caalamka, gacanka cadmeed waxa uu qaadaa 20% ganacsiga caalamka. Dekedda Berbera waxay leedahay awood weyn oo ganacsi iyo ciidan. Ka hortagga argagixisada iyo tahriibka, Somaliland waxay la dagaalantaa argagixisada. Soomaaliya waa hoy Al-Shabaab iyo shabakadaha tahriibka. Tartanka caalamiga ah, Shiinaha waxa uu isku dayay inuu go'doomiyo Somaliland kadib xiriirkeedii Taiwan.
maraykanku wuxuu fursad u leeyahay inuu ka hortago saameynta Shiinaha iyo Iiraan ee gobolka. dhanka dimuqraadiyadda shaqaysa, Somaliland waxay caddaysay dimuqraadiyaddu inay ka shaqayn karto xitaa xaalado adag. taasi waxay ku waafaqsan tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo taageerta dimuqraadiyadda. fursadda iyo faa'iidada uu ka heli karo Maraykanku ayay tiri Ayaan Hirsi haddii uu aqoonsado Somaliland ayaa qodobadan ah inuu yeesho lamaano istiraatiiji ah oo ku yaal meel muhiim ah, inuu helo xulafada dimuqraadiyadeed ee geeska Afrika, inuu hubiyo amniga badda iyo ganacsiga caalamiga ah, inuu xoojiyo mabaadi'da Maraykanka ee taageerada dawladaha sharciyeysan. khatarta haddii la dayaco oo aan la samaynin isla aqoonsiga Somaliland ayay tiri iyadoo qodobadani ku sheegtay Shiinaha iyo xulafadiisu waxay gacanta ku dhigi karaan dekedaha iyo marinada muhiimka ah. argagixisada iyo tahriibku waxay sii xoogaysan karaan gobolka. Maraykanku wuxuu lumin karaa kalsoonida dadka deegaanka oo u arka Somaliland tusaale dimuqraadiyeed. hadalkii gunaanadkii ayaa tiri Ayaan Hirsi Somaliland waxay muujisay dhammaan astaamaha dawladnimo, xuduud ciidan, dastuur, hay'ado sharci dejin iyo garsoor, doorashooyin dimuqraadi ah iyo adeegyada bulshada 34 sano ee la soo dhaafay. waxay ilaalisay xasilooni marka Soomaaliya inteeda kale ay ku jirtay dagaal iyo argagixiso. Somaliland waxay kasbatay aqoonsi, waxaana waqtigan ku habboon yahay in Maraykanku qaato mowqif cad oo ku wajahan aqoonsigeeda. aqoonsigu ma aha oo kaliya abaalmarin guul dimuqraadiyadeed, balse waa tallaabo istiraatiiji ah oo ilaalinaysa danaha amni, dhaqaale, siyaasadeed ee Maraykanka. Ayaan Hirsi sidoo kale talooyin siyaasadeed oo loogu talagalay Washington oo ku socda Washington ayaa ay halkani u marisay. waxay ku bilowday 1 in la bilaabo aqoonsi rasmi ah ama ugu yaraan in si cad loo muujiyo in Somaliland tahay dal kasbaday dawladnimo. 2 in la ballaariyo iskaashiga amni, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta badda. 3 in la maalgeliyo kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedda Berbera iyo isku xidhka ganacsiga gobolka. 4 in la dhiirigeliyo horumarinta bulshada, waxbarashada, caafimaadka iyo sinaanta jinsiga oo ay Somaliland horeba uga gaadhay horumar. 5 in la xoojiyo xiriirka siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed iyadoo loo marayo safaarado iyo wakiilo gaar ah. gunaanad, Somaliland waa dal jira, dimuqraadiyad shaqaysa iyo xulafada istiraatiijiga ah ee Maraykanka ee gobolka. aqoonsiga Somaliland waa arrin waaqici ah, waana tallaabo ku habboon danaha Maraykanka iyo mabaadi'diisa siyaasadda dibadda. ayay ku soo koobtay Ayaan Hirsi hadalkeedani.